لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما filimada qofku uu daawanayo laa shaka aynu iska ognahay in wax badan oo aan wanaagsanay ku jiraan ama dumar qaawan ama waxaan dhaqanka islaamka ku fiicnayn waxaa kaloo aynu ognahay waqti badan inay dadku ku lumiyaan oo ama ay cibaadaysan lahaayeen ama cilmi baran lahaayeen waqtiga ramadaantuna habeen iyo maalinba waa qaali oo waa fursaddii ilaahay cimriga inoogu dheeraynayay marka inuu qofku iska daayo oo wax kale oo wanaagsan oo khayr badan inuu waqtigiisa ku camiro weeye masaajid haddii ay noqotona dee dikrigii iyo diintii ilaahay buu ka mashquulinayaa waxa uu daawanayaa xataa haddii aan wax sharciga khilaafsani ku jirin marka inay dadku iska daayaan aysan u cibaadaystaan baynu ku dardaaraynaa su-aasha labaad ee ah soomka sunnaha ah ee shuwaalka iyo qallaha bisha ramadaan iyo maa la horraysiinaya waxaa la horraysiinayaa qadaaga oo shayga faralka ahi mar walba wuu ka horeeyaa shayga sunnaha ah nebiguna wuxuu uhi salى اllahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa fadayn ullaahi axaqu an yuqdaa deynta ilaahay baa ku habboon in la bixiyo oo deyn walba waxaa ka horeynaysa deynta ilaahay man saama ramadaana uma atbacahu sita min shawaal fakaأnnamaa saama dahra xadiidkii macnihiisu ahaa nebigu waxau yihi qofka bisha ramadaan sooma lixda shawaalkana raaciya waxa uu ka dhigay inuu sanadkii oo dhan soomay dee weli ramadaan muu soomin oo ma dhammaynin hadday qaybuu dhimantay markaa wuxuu raacinayaa markuu qallihii dhammeeyo culimmada qaarkoodna waxaabay ku tegeenba inaanu qallahaas oo uu la yimaado mooyaane aanu sunnaha la iman karaynin qaybta dambe anigoo sunnihii soomaya faralku miyuu hoos gelayaa maya ama faralkunbaad ka dhigaysaa ama sunnaha markaa waa inaad faralkana horraysiiso nijaasta ayga waxaa loo maydhaa siduu sheegay xadiidka saxiixa ah fii imaam muslim saxiixiisa ku sugan min xadiidi cabdillaahi bni mugafal uu nebigu tilmaamay in la maydhayo 7 jeer oo midicii tahay marka intaasun baynu haynaa 7daa jeer baa la maydhayaa nijaasta ayga ee ay midiciidda tahay haddii wax kale oo nijaasta iyo qurunka aada u sii jara lagu daro dhib ma laha laakiin waa in 7daa la maydhaa qofka tukanaya haddii hortiisa la maro oo qof yari uu maro ama meeshii ku dhoweed ama qof kaleba uu maro ama xayawaan maro salaaddii miyay ka buraysaa maya kama burayso laa yaqdacu salaata shay xadiidkaa nebigu wuxuu ku leeyay sala allahu calayh wasalam salaadda waxaa hormaray ma gooyo laakiin qofku waa inuu iska waabiyaa qofu kasayaana inuu hormaraa waa xaaraan laakiin salaadda ma goynayo waxaa hormaray salaaddiisii waxay u noqonaysaa mid u hirgasho qofkana u ansaxda madhabulxanaabila ayaa waxay sheegaan ayga madow iyo dumarka iyo inay goynayaan laakiin sida raajixee culimmadu ay u badan yihiin waa inaanu jaraynin oo salaaddii aanay waxba ka noqonayn sujuuddan ku jirta qur'aanka kariimka marka la akhriyayo ee la sujuudayo casarka kadib waa la sujuudi karaa maadaamay sabab leedahay salaaddii sunnaha ahaydee sababta lahaydba casar dabadii waa la tukan karaa wallaahu aclam jasaaka allahu khayr wbaarak allahu fiik sheekh saa'ilkani wuxuu leeyahay waxaan ku noolahay guriga walaalkay oo aan waxna barto waxna ka cuno guriga waxaanan maqlay buuhi nebigu inuu yihi sal allahu alayh wasalam alxamu almowt ninka yacni gabadha dumaarshadeed waa geeri oo kale oo dhexgalka had iyo jeer lasoo dhexgeliyay rasuulku aada uga digay maaragtay guriga dumarku ay joogaan marka aniguna meel kale aan ku noolaado ma haysto ninkaa walaalkay inaan la joogo mooyaane ma wax dhibaa ama dembiya miyaa iga imanaya la joogidda aan la joogo guriga ay dumarku joogaan ajaanibta anigana gurigii walaalkaya wuxuu leeyahay saa'ilka labaad ee su-aasha soo qoray waxaa dhacda had iyo jeer ragga iyo dumarku markay guur ka wada hadlayaan inay ballamaan ballantaasi ma ballan laazim oo aan laga bixi karin baa sidii ballamaha kale oo kale oo haddii laga baxo lagu dambaabayo
mise ballanta guurku waa ka duwan tahay oo qofku hadduu meel ugu wanaagsan helo waa ka bixi karaa. su-aasha saddexaad wuxuu ihi waxaa dhimatay inan yaroo aan dhalay oo xilligii umusha ayay hooyadeed ku dhimatay, dabcan nolol kumay soo dhalan sida muuqata. inantaa yar ma loo tixgelin karaa inay noqonayso shafeec alwaalideyn ama mid la rajaynaya inay waalidka u ergeysa qiyaamaha oo ay u ducayso? wuxuu leeyahay saa'ilka kale su-aasha afraad, khamiisku ma dhaqan carbeed baa siday dadka qaar yidhaahdaan, mise waa mare islaami oo sunno ah oo ajar gaara leh oo maryaha kale ka duwan? su-aasha ugu dambaysa wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray, waxaa soo baxay baryaha dambe dhallinyarada qaar marka la salaamay assalaamu calaykum lagu idhaahdo inay wacalayka salaam yidhahdaan halkii ka odhan lahayn wacalaykum assalaam. marka wacalayka salaamtaasi ma salaan islaam oo dhammaystiran baa mise wax nusqaana ayaa ku jirta? sheekh maxamed. marka hore wuu jiraa xadiidkaasi oo waa saxiix, odhanaya dumaashigu waa geeri. macnaheedu ruuxa dumarka ah marka dumaashideedu ninkii walaalkeed ay walaalaha ahaayeen markuu guriga joogo, waxaa lagama maarmaana in aadaabtii sharciga ahayd la ilaaliyo. oo siduu geeri uu sheegay waxay dee fitna ka dhalan karta wey, fitnaduna waa wax lala dhinto. marka gurigii waad iska joogaya, waxna waad ka cunaya, wax waad ka baran kartaa goobtii. waxaa si habboon un aadaabtii sharciga ahayd inaad ilaaliso, waayo xadiidkaa nebigu wuxuu diidaya khulwada inay nin iyo gabadhi isla gooni noqdaan. marka haddaad walaalkaa markaad la socoto gurigii joogto wax ka cunto, marka kale maqsinkaaga aad ku egaato aydaan meel gooniya wada gelaynin, oo aadaabtaa sharciga iyo wixii fitno keenaya la ilaalinayo, dhib ma leh. su-aasha odhanaysa ninkiiyo ruuxa dumarkii hadday guur ku ballamaan miyuu ka bixi karaa midkood? ha wuu ka bixi karaa, laakiin waa inaanu beenna sheegin, qofkanna aanu ku ciyaarine runta u sheegaa u idhaahdaa hawshii caynka ahaydaynu isku ogeyn adoo iga raalliya layguma hadleeya waan ka baxay. mar haddaan meher la galay jirin oo wax la guntay caqadi aanu jirin oona isguursanin, wacdiga ama ballanta in la fuliyaa waa sunne cinda aljumhuuri alculamaa. culimada islaamku siday u badan yihiin waa wacdi baa leh, waa ballan. marka ballanka fulintiisu waa sunne weeye. haddii cudurdaar yimaado ama iyadoon cudurdaarba imanin, qofku wuu ka bixi karaa, qofka kale waa inuu sheegaayo aanu ka qarinin, iskuna dayaa inuu qanciyo. su-aasha kale ee ah ilmaha yari goormuu waalidka u shafaaco qaadayaa? waa marka uu 4 bilood gaadho wakhtigii lagu afuufayay ruuxda. hadduu soo dhaco uu shafaaco qaadi bay leeyihin culimadu. qayb ka midana waxay leeyihin waa markuu nolol ku soo dhasho. mar leyba ilmaha marka uu waalidka u shafaaco qaadaya wakhtigaa nolosha jirto, ama urka ha ku noolaado ama ifkaba ha ku noolaado. waana u bushaareeyey nebigu salى اllahu عalayhi wasalam, ayuma imra'atin maata lahaa 2 min alwalad 3 min alwalad kuna lahu aw kaanuu lahu jaaran xijaaba min annaar calaa macna alxadiid. qof kastoo waalidaho ay u dhintaan 3 ciyaali xijaab bay uga noqdaan naarta. markaa ruux dumaraa tidhi bal laba qofka ay u dhinteen ka war ama ka dhinteen, labaduna waa la mid buu nebigu yihi salى اllahu calayhi wasalam. markaa wuxuu noqonayaa aakhiro mid u ergeeyo ilaahay baa u ogolaanaya. waa bushaaro jirta weeye. markaa ilmahaasi kol hadduu caloosha ku noolaaday amaba nolol ku soo dhashay, labada jeerba way sheegeen culimmadu inuu waalidka u shafaaco qaado ayaa la rajaynayaa. waatanay hooyooyinku yidhaahdaan marka ilmuhu ka dhintay iyagoo isqancinaya aakhiraba waa looga baahan yahay. qamiiska xidhashadiisu dharka kaluunbuu la mid yahay. haddii dadka aada la joogto qamiis ay xidhaan waad xidhan kartaa, kolba waxay ummadda aada la joogtaa xidhaan ayuunbaad xidhanaysa. marka dharka unbuu ka mid yahay. waxaa sunno ka dhigi kara uun inaad markaad xidhanayso jacaylkii nebiga uga dhowaanaysa salى اllahu calayhi wasalam. oo xaaskiisii umu salama waxay leedahay kaana axaba ahiyaabi ilaa rasuuli illaahi salى اllahu calayhi wasalam alqamiis. nebigu dharka qamiisku u jeclaa. haddii qamiiska gaaliya islaamba waa la xidhanayo dhaqankii carabtu ahaa, laakiin si gaaruu nebigu u jeclaa. welibana markuu shaygu cad yahay, dharku cad yahayna, nebigu waxa uu ummadda uu kusii abaabulayo waxa uu maaragtay lahaa dharkiina
waxaa ugu fiican kacad ayaa uu lahaa markaa idinkuna xidha qofka dhintayna kafan uga dhiga markaa qamiiska iyo caddaanka labadaasoo ishelay labadaa daliil bay haystaan oo dharkii nebigu uu jeclaabay ahayd sala allahu calayhi wasalam inta badanna xidhan jiray markuu cad yahayna wixii cad oo dhan dharka xadiidkaasaa ku soo arooray laakiin mar walba ummaddaad la joogto dharka ay xidhanayaan unbaad xidhanaysaa iyada oo aanu sharciga khilaafsanayn oo dee wax kugu dhegan oo cawradii bannaynaya aanu ahayn marka qofku uu salaam qof kale ka qaadayo jawaabta salaamta inuu idhaahdo wacalayka asalaam waa laga fiican yahay waayo nebigu salaamay oo markaasuu ugu jawaabay wacalayka asalaam markaasaa nebigu waxa uu ku yihi wacalayka asalaam taxiyatu lmeyit ayuu 3 jeer ku celiyey ereygaa wacalayka asalaam waa qofka dhintay sida loo salaamo marka waxaad tidhaahdaa wacalaykum assalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatu marka iyadoo haddii la yidhaahdo axaadiidta qaarkood ba ay ku soo aroortay inuu nebigu yidhi haddana tan kalaa ka fiican wacalaykum assalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatu ayaa ka fiican wallahu aclam jasaaka allahu khayr sheekh maxamed ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ku saaro wuxuu leeyahay saa'ilkani su-aasha soo qoray waan xanuunsanayaa waxaan isticmaalaa cashar iyo dhir iyo waxbaan isticmaalaa qur-aan lagu akhriyey kadibna waan ka maydhaa oo masqusha intaan tagaa baan ku maydhaa arrintaa wax dembi casharkaa qur-aanka lagu akhriya masqusha lagu maydhaya miyuu ga soo gaadhayaa halkeese ugu habboon ee aada is leedahay waa lagu daadin karaa biyahaas ee qur-aanka lagu akhriyey su-aasha labaad wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray ninku haddii uu 2 gabdhood hal mar wada sheekeeyo kadibna taqancise hadhow uu guursado amaba uu istikhaaraysto salaaddii istikhaarada intuu tukado tay u barata uu guursado arrintaa wax dembi miyuu ku jaban yahay su-aasha saddexaad saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay gabadhayda ama xaaskayga ayaa mashaakilna kala dhex maray kadibna way qabatay midi bay igu qabatay waxay igu qasabtay buuri inaan furo haddaan furana waa dalqadii ugu dambeysay wuxuu yidhi waan furay anigoo midida ka cararaya oo la qasbay oo maaragta la qasbay arrintaa furiinkaasi miyuu dhacayaa sheekh maxamed laygu qasbay wuxuu leeyahay saa'ilka afraad ma bannaan tahay in gabadhu markay uur leedahay dhakhtar u tagtay si ay ogaatay ilmaha caloosheeda ku jira rag iyo dumar wuxuu yahay su-aasha ugu dambeysay saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay mashaakil baana kala dhex maraan iyo walaalahay kadibna waan cafiyey laakiin ma booqdo uma tago sababtuna waxay tahay wuhi haddaan u tago mashaakilkiiba halkii ka soo noqonaya markaa booqasho la-aantaas wax dembi miyuga haystaa maxaad se nagula talin lahayd falyatafadal sheekh maxamed markuu qofku ku maydhanayo biyo qur-aan lagu akhriyey waa inaanu xamaamkan wasakhdu ay ku jirto ku maydhanin ee weel nadiifa uu ku maydhaa sida tashtiya wixii la mid ah biyahana uu ku shubaa meel daahir ah sida beerta iyo wixii la mid ah waayo qur-aanku waa xaaraan in loola badheedho nijaasta in lagu shubo su-aasha ah ninku 2 dumara ma la wada sheekaysan karaa wax u diidayaa ma jiro waayo labadoodaba dee u wada guursan karay marka inuu tanna la dhammeeyo mar wada guursadaaba u bannaanaydba marka wax xaaraan ka dhigayaa ma jiro wuxuuna la diidayaa uun inuu been ku daro hadday tidhaahdo xaas miyaad leedahay iyo tu kale miyaad la sheekaysataa inuu idhaahdo maya beentaasunbaa la diidayaa mooyaane sharci ahaan wax diidayaa ma jiro su-aasha kale ah ninka haddii xaaskiisu ay ku qasabto furiinka ma furmaysaa qasabkaasi hadduu mid dhaba yahay ma furmayso ee qasabka waxaa jira mid aan dhab ahaynoo la maarayn karo dee ninku gabadha ruuxa dumarkaa inta badan wuu ka xoog wen yahay waxay ku hadidayba hadduu iska qaban karayo oo ayar uu iska dhaafi karayo qasab lama yidhaahdo taas laakiin marka uu khatar gelayo ayaa qasab loo tixgelin karaa marka wixii qofka lagu qasbana ma dhaco hadday furiin tahay hadday gaalnimo tahay hadday siin tahay rufica can ummati alkhata wanisyaanu wama stukrihu calayh in allaha wadaca can ummati nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ummaddayda ilahay wuxuu ka daayey wixii gafa wixii ilowa uga dhaca iyo wixii lagu qasbo marka taana waa caynkaasoo kolley dadku waxyaabaha qaar unbay qasab iskaga sheegaan marka loo dhabogalana aan qasab ahayn bal waxaad u tegi doontaa culimada kula joogo labadiinaa u warrami
xaaladdu si ay ahayd si la idinla qiimeeyo. su-aasha kale ilmaha uurka ku jira ma la eegi karaa kombyuutarka ma lagu eegi karaa dhakhtarka ma la weydiin karaa wiil iyo gabadhka uu yahay dhib ma leh oo bani aadamku wuxuu ogaanayaa un sidan malaa'igta ilaahay u diray ay u ogaanayaan ila waa kuwan ajashiisii iyo arsaaqadiisii iyo qoraya oo siduu kuwaa ilaahay u ogeysiiyunbaa innagana laynoo ogeysiiyey waxaynu ka ognahayna wuu jiraa ilmaha iyo waxaynaan ka ogeynoo ilaahay unu ogyahay marka dhib ma laha laakiin waxa fiican in la iska daayo oo dadka qaarkood baa markay ogaadaan inuu wiil yahayna ku farxa markuu ogaadaan inuu gabadh yahayna ka naxa oo hinduduba marar badan waa kuwa soo rida marka halkiisa inuu ku nabad galo oo aad goordhow un wiil iyo gabadh ku kastaba ha ku ahaade waa hibe ilaahay aad alla ka guddoomataa fiicanoo aan waxba hore loo soo qadimin ogaanshaha iyo aqoonta loo yeelanayo. su-aasha kale dadka qaraabada markaan u tagaa baanu isdilaynaa waxaa kuu fiican inaydaan waxba isdiline haddii nabadiinu ay ku jirto iyo qaraabo xidhiidhintu telefoonka iyo waxisasiinta iyo bariidada iyo wada socodkaa dabadda tiinaa ku daysta. waxaana ka sii fiican inaad si fiican u heshiisaan oo cid idin dhex gasho oo wada hadashaan oo turxaan bixin samaysaan taasaa fiican kol haddii kolka is aragtaanba isku qarxaysaan heshiis dhaba baan jirin ee heshiis dhaba gaadha si aa cafis u gaadhaan oo ilaahayna cafis uga heshaan subxaanahu watacaala taladaynu raacinaynaana waa taa weeye inta taa ka horeysana haddii wanaaggiinu uu kala jooga ku jiro dabadaasun ka wada xidhiidha wallaahu aclam. sheekha ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisa inagu anfaco isagana ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro. jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.